khilaafaad kan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba mooshin baa la sidaa laleeyahay inta meel la dhigo ani waxaan arkayaa mooshinka dagaalka inay aadaan جزاكم الله خير دجال شباب كنا همر لبدا cid wixii waxaan sameynaya ciday doonto ha noqotee wixii waxaan arkay sameynaya iyo waxaan hore u soo aragnay luqada rasaasta ahayn oo garanayaan male dhawaan waxaad shir aad ku qabatay isla xarunta gurmad qaran oo hadda markaad meelaha soo inay dhaysay kadib waxaa shirkaaga ka mid ahaa baaq aad u jeedisay dhalinyarada loo adeegsanayo ficiladan ama fulinaya ha noqdaan kuwa isqarxinaya muxuu baaqaa ku wajahnaa wuxuu ku wajahan yahay waxaan iri qofka intuu nool yahay tawb uu heli karaa dambi kasta hadduu soo galo qofka hadduu nool yahay tawb uu helaya laakiin qofka marka ugu dambeysoo dhimanayo hadduu dambi sii galo ku khatimo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tagay oo dambi waaweyn uu la tagay bay sheegaysaa tawbadu way furan tahay wa tuubu ila Allah jamii'an ayyuhal mu'minuun waxaan leeyahay tawbad keena oo dhamaanteena tawbad keenana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay oo tawbad keenaya mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yiri riwaayad kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd insha Allah ta'ala waxaan leeyahay baraaruga waad u jeedaan waxa meeshan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyay boqolaal la leeyahay ama burbursan yihiin leeyahay tan oo kale haddii toosan aqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan ma aha toobadkeen oo baraarugan leeyahay dabcan qasaaraha waxa uu soo gaaray waa shacab Soomaaliyeed nooc doona ha noqdaan oo qaybaha bulshada isugu jiray haddii sidan shacabka loo gumaadayo maxaa shacabka la gudboon looga baahan yahay kula tahay shacabka waxa la gudboon dadka daraad waxa meeshan ka dhacay sameeyay oo dadka daraasiin iyagoo alleynaya inay isugu tagaan oo iska dhiciyaan dawo kala male qof alla ka ilaahay ka cabso aan ka yeelaynin oo waxaan sameeynayo haddana isla saxan waxa weeyaan waxay tusinaysaa taas hadii qofkaas wax ku dhiman oo kala male waxaan leeyahay horta marka hore toobadkeena waxaan iska daayay hadii ay yeeli waayaan ani waxaan leeyahay ummadan walba boqol baad u dhimanaysaan hal maalin hadaad dhaqaaqdaan inta idinka dhiman mayse waxaan leeyahay insha Allah ta'ala iska dhiciyo waxa noocan u dhaqmay yaa marka laga rabaa in bulshadu saas hadda dabcan waxay leedahay in dargarad odayaal culimo ayagana doorka u furan odayaashii culimada laga rabaa la gudboon muxuu yahay culimada ilaahay wuxuu yiri la tubayyinunahu lin-nas dadkay xaq u sheegayaan wayna ku horkacayaan dadkuna insha Allah ta'ala waxa laga rabaa inay iyaguna raacaan oo dhageystaan ummadda hoggaankeedii indhaheeda weeyaan taasaa marka laga rabaa dadku inay culimaduna way taagan yihiin dhalada waan fiirinayay telefisyoonka way hadlayeen culimo waaweyn oo ajilla oo Soomaaliya qiimo weyn ku leh baa hadlaya jazakumullahu khayr way wadaane waxaan leeyahay hal hadlo laakiin hal arin waan dareemay culimada oo dhan waxaan inay khaldan yihiin oo aan diin shuqul ku lahayn way u jeedaan laakiin hoogaa dhib baa jiro qaar badan baa war waxaan maxay yihiin hadaa tiraahdo waxay ku waa khaldan yihiin balaaya meesha ka dhacday laakiin banaanka intay soo istaagaan ma hadli karaan taas marka waxa la rabaa culimadii amaankooda in loo sugo oo way dhiiratay ma ogtahay qolada kalena in marka ay amaan rasmi ay helaan si iyaguna ay u hadlaan culimadii taladu way isku waafaqsan tahay laakiin in dhawaaqiiba ma ogtahay Soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen waa iska sheeko Soomaaliyeed marka yom kulaal baa nafta noo keentay maxaan sameeynaa markaas kii ugu roonaa baa yiri koor inta la soo qaado ama waxa la bahalkan jariska la yiraahdo waxa tiraahdaa qoorta loo suru yiri marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yiri gabashe markay soo boodo koortiga dhawaaqayso waa kala yaacayna taladii waa isla gooyay laakiin yaa qoorta u suraya marka kii suri lahaa baa la waayay marka waxa la rabaa in dadku dhiiradaan oo qoorta loo wada suro waxa kale oo jirta maxamaha Soomaaliyeed waxay dhahaysaa budaalo wal iska la qayliyay budaalo wal iska la qayliyay bimaana qoomiyo waa lagu wada qayliyaa leeyahay wax kale ma marka hadii qoomiyada in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanay lagu dhigeysanayaa fariintaada guud ee dadku u diraysaa maxay tahay anigu fariinta guud oo dirayo waxa weeye Soomaalidu inay midoobaan dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u midoobaan
ay u midoobaan oo garabka isqabsadaan khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba un mooshin baa la sidaa laleeyahay inta meel la dhigo ani waxaan arkayaa mooshinka dagaalka inay aadaan jazaakum allah khayr dagaal shabaabkana hamar labada aad cid wixii waxaan samaynaya ciday doonto ha noqotee wixii waxaan arkay samaynaya iyo waxaan hore usoo aragnay luqad aan luqadda rasaasta ahayn oo ay garanayaan male